الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. إمام كبيلة مدلود، إمام داهر، إمام محمود، إمام عمر. صلاة دين تكالي أو فرددا شركة يبول شذا كلا وقيبه هذا كلا الدوان مضنا اليمر وين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كدب waxaa sharaf noo ah inaan intaan annagoo aan kulanno annagoo ka hadlayna maslaxadeena iyo danaha aan leenahay. waxaan marka u mahad celinaynaa shirkan intii ku soo dhibtootay, waqti gelisay, maskax gelisay, xoolo gelisay, kuwaas waa u mahad celinaa marka horeba. intaas kadib saad ogtihiin mudanayaal iyo marwooyin shirarku waa nugu badnaayeen. ujeedooyinkuna waxay ahaaday baahi loo qabo. waad maqlayseen oo ajandayaashii meesha laga aqriyay way badnaayeen. suuragal marka nooma aha baahida jirta oo ka jirta dalka guud ahaan iyo gaar ahaan gobolka Banaadir iyo beesha afkeeda hadda aan ku hadlayno meeshaan fadhida intuba kuma xalis maayaan hal shir iyo laba shir midna. waxaan rabnaa marka inaan ka faa'iideysano fadhiga maanta aan fadhino. saad maqlayseen cafiska waxaa laga bilaabay ajandayaasha shirka. in la iscafiyana waxbaa ku fududaan kara. waxaa Soomaalidu tiraahdaa reer nabada looma tali waayo. in la iscafiyaa waxay bilow u tahay nabadda iyo deganaansha iyo is-aaminidda. saad ogtihiin dadka waxay qabaan xasaasiye ah armaa wax naga xumaadaan. siyaasadda saad ogtihiinba ayadaa wax hoggaamisa, bulshada ayadaa hoggaamisa. hadday ayadu qaldanto oo la isku qabsado amnigu waa xumaanaa, dhaqaaluhu waa xumaanaa. waxa dhan oo bulshadu ay ku degan tahay waxaa weeye siyaasad degan in la helo. siyaasad degana waxaa aasaas u ah dowladnimada. saad ogtihiin meeshaan waxaa la isku doortay laba goor. nabadaa la isku doortay. doorashaduna waxay ahaaday mid ilaa xad la wada ogol yahay. mushkiladaha marka hadda jira waxaad moodaa kulligood inay ku wareegaysanayaan doorasho u eg ku shubasho, doorasho u eg shaar qola tolatoy isla ekaysiisay. mushkiladda marka waxa hormuudka u ah oo dhibaatada u ah halkaas waay. Soomaaliya inteeda kale anigu waxaan aaminsanahay inaan wax dhibaato ah aysan ka jirin haddii laga reebo siyaasad xumada oo ka socota dowladda hadda jirta. saad ogtihiin madaxweynaha waxaa laga rabaa weliba xilligan kuma sii jirto waxa la yidhaha nabadoonnimo. dadka inuu isu keeno, nabad inuu ka shaqeeyo. aan xisaabino marka inta meelood oo maanta Soomaaliya dagaal ka socdo la iska soo horjeedo. midda hadda annagu aan joogno oo muraayadii Soomaaliya ah oo Muqdisho ah oo caasimadii ah dadka 80% waxay ka walwalayaan dagaal inuu dhaco. arrintaas waxa keenaa waxaan qabnaa waa siyaasad xumo, waa kursi la jeclaado. 30 sano waxaan ugu qaadatay iyo ka badan sababteeda waxaa iska lahay dictatorship baa lahay. maanta marka dictatorship dib ugu balaaban karno waxaan ka soo kabanaynaa dhibaatadii nagu dheeraatay oo ka dhalatay xukunka la jeclaado oo dictatorship uu sabab u yahay. maanta marka dagaalna dooni mayno, dictatorshipna dooni mayno.
hoggaanka dawladda madaxweynaha waxaan ka codsanaynaa oon cod dheer ugu sheegaynaa doorashada nabadow ku yimiday si xasilooni leh oo haybad leh oo sharaf leh ayuu xilka ula wareegay waxaa laga rabaa sidoo kale inuu u wareejiyo haddii la doortana oo sida kula wareego madaxweynaha waxaan ka codsanay cod dheer ugu sheegaynaa doorashada sidii loogu wareejiyey inuu u wareejiyo sharafta laheed oo karaamada laheed haddii dib loo doortana sida loola shaqaynaa cabsida waxa ku kalifaa ma garanayno meeshaan ra'iisul wasaare ka noqday madaxweynuhu waa lala shaqeeyey ayadoo laga gardaran yahay way jirta marka sida uu ku baxay waan ogeyn waa loo hiiliyey magaaladan waad ogeydeen mudaaharaadiyaan ka dhignay waxaan diidnay in laga gardarayaan ugu hiilinaynay waa la doorto madaxweynaha loogu doorto sidii loo soo dhaweeyay waad ogeydeen dadka hadda meeshaan fadhiya inta magaalada camiraha waa intii soo dhaweysay oo saas u jeclaad maanta marka wax dhedhan qabiilla lama rabo dadka inay iska hor keeno lama rabo kursiga inuu jeclaado lama rabo waxaan rabnaa doorasho xalaala inuu qabto wada ogol ah waqtigeedina ku dhacda dadka Soomaaliyeed intaas haday helaan guryahooda ku laamanayaan dibna ma qabaan waxaan rabnaa doorashada in laga daawoobo laga heshiiyo xalaal ay noqoto wada ogol ay noqoto saasaan rabnaa haddii la waayo wixii yimaada mas'uuliyadda madaxweynaha qaada waxaa kaloo rabnaa aanan ka aalayno cod dheer ku sheegaynaa gobolka Banaadir dhibaatada ka jirta looma dul qaadan karo gobolka Banaadir dikreeta madaxtooyada ka soo baxday laguma maamuli karo laguma noolaa karo kuma dhismi karo horumarna kuma gaari karo gobolka Banaadir waxaan rabnaa asagoona uu islahaado waxaan rabnaa maamul in loo sameeyo meeshaan maanta waxaan rabnaa guddi asagoo uu leeyahay oo ka shaqeeya gobolka Banaadir inay dhisaan inuu ka soo baxo shirkan haddii Ilaahay idmo waana ku ballanay sidaasaad dhagaha ku qaadaysiin guddi halkaan ka dhasha oo farsamo yaqaana oo aqoon-yahano ah oo lagu aamini karo shaqadaas ayaan ka soo saaraynaa shirkan guddigaasana biidnillaahi kariim waxay u dhisayaan gobolka Banaadir maamul lagu aamini karo oo asagoo uu iska leeyahay waxaad ogtihiin madaxda hadda gobolka joogtaahi nin dikreeto lagu magacaabay iyo nimaan shaqaba ku lahayn oo ka shaqaysta intaas lee waaye marka loomana noolaa karo waa naafic weyda taas dulqaadna waa dhammaaday marka waxaan diyaar u nahay waxaan soo gaarnay xilliga annagu aan tasho lahayn danaheennana aan aqoonsan lahayn maanta waxa nooga dambeeyaana ma jiraan sidaasaad ogaanaysiin ma jirto cid dambe annagu aan u daba kacayno maamulka gobolka Banaadir haddii alla idmo waa inuu la soo sinmaa dawlad goboleedyada biidnillaahi kariim waxaan rabay inaan ku daro arrintan oo dhibaato ka jirta gobolka Hiiraan waa ka xumahay waa hilmaamay gobolka Hiiraan dhibaato ka jirta waxaad ogtihiin mushkiladaas waxay u baahan tahay inaan annagu xallino haddaanan xallin mayso dhismihii Hirshabeelle waxaa ka dhiman gobolka Hiiraan in la xalliyaa ka dhiman waxaan rabnaa arrintaas inaan ayada lafteeda guddi u bixino laga shaqeeyo debkaasna la damiyo dawladdana waxaan ka codsanayaa siyaasadaha ka dayso yaan la siyaasadaynin maamulkaas dhaawacaa ku yaal dhaawacaa loo geystay inuu dhintana ma rabno arrintaasna waxaan rabnaa inaan badbaadino sideedu ku soo celino gobolka Hiiraan oo Hirshabeelle ay dhisanto haddii alla idmo
أيضا نمط قبته عافمات قبته هذا وبالله التوفيق. نبضاني مو أدو ما سي ku xirnow IBS Bank goob kasta iyo goor kasta adigoo isticmaalaya IBS Mobile Banking degso application-ka oo isticmaal adeega IBS Mobile Banking si aad u isticmaasho application-ka fadlan kala soo deg Google Play ama App Store-ka ku qoro IBS Mobile Banking kadibna guji install si aad ula soo degto app-ka haddaba ka isticmaal teleefankaaga adeegyada IBS Bank